السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad malaysaa adigoo telefoonkaaga smartphone-ka uu ka kooban yahay caddaan iyo madow keliyata hubanti la'aan waxa uu noqonayaa mid lagu caajiso. bal hadda qiyaas haddii dunidoo dhan aad arki lahayd caddaan iyo madow keliyata, xaalku sidee ahaan lahaa? jasiiradda Benjelib waa jasiirad yar oo ku taalla badweynta Pacific gaar ahaan waddanka Micronesia inta u dhaxaysa Indonesia iyo Philippines, waxaana ku nool dad gaaraya 700 oo qof. dadka halkaasi degan badankood ma awoodaan inay kala saaraan midabada jasiiradooda quruxda badan, umana kala duwana buluuga badda iyo cirka, cagaarka geedaha ama xitaa midabada ubaxyada, waayo adduunka oo dhan waxa uu yahay mid caddaan iyo madow ay arkayaan keliyad. dadkani waxay qabaan cudur ah indhabeelka midabka ilaa laga soo bilaabo dhalashadoodii, waxayna u muuqataa in hidde-sidayaashooda ay sabab u yihiin cudurkan la yaab kale oo loo yaqaano achromatopsia ama indhala'aanta guud ee midabka. cudurkan aad buu naadir u yahay marka la eego caalamka, waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco 30,000 ee qofba hal qof oo ka mid ah, sida ay culimadu dhankan ku takhasusay ahaataysay. marka la eego dhanka guurka, dadka jasiiradan aad ayay u necib yihiin inay guursadaan dadka ajaanibta ama dadka kale iyaga ka duwan, waxayna xaaladani soo jirtay muddo qarniyo ah. ka sokow inaysan awoodin inay ku raaxaystaan quruxda muuqaalka jasiiradooda, dadkani waxa ay kaloo gaar u yihiin in cuntadu isku dhadhan u tahay, waxaana isku mid u ah cuntada xumaatay midda caadiga. sidoo kale waxay xasaasiyad ku qabaan iftiinka qorraxda, taasoo u diidaysa inay shaqaystaan maalinkii. waxay ku khasaareen aragga midabka, laakiin waxay gaar la noqdeen awoodda aragtida habeenkii, taasoo u saamaxday in ay kalluunka badda ku dhex jira arki karaan iyagoo si cad wax u kala saari kara habeenkii. macnahaan intan waxay u dhigantaa in habeenkii wax walbo badda gudaheeda xayawaan kasta oo ku jira ay arki karaan, taasina ay awood u leeyihiin.